أجعنا فلو أديجان سمينا يكبع مجال أي ولا ما يسترن تهيئ أديجة بالشدة وأنا فيشين كأمارك تدا إلى هايين دتك الديجان كسيدا كم وقتبار كل خرالة سوري حرنت مجال ده هديجان أهان ودول قروح بدن إسلام كاسنا وديار سند البيرة وحول ليه هاي عملوا ناكسنا أورون دتك الديجان كيدون يده هالكاسي يكونول magaalada intaas oo ay noo joogtay maanta warbixinteena waxaynu ku eegaynaa kaabayaasha arrimaha bulshada sida goobaha waxbarasho iyo xarumaha caafimaadka iyo xarunta booliiska magaalada xubno ka socda ururka Tabantaabo oo 3 sano ka hor halkani ka soo bilaabay iyadoo siira maanta waxay u joogaan kamal dhalinta qaar kamid ah adeegyada halkan ay ku qorteen waxaana la dhisay xarunta caafimaadka magaalada iyo iskoolka deegaanka ونقرأ ما أنت إيش اللي مياه مسوي شوف تعال مستأدرين مسوي ما نقارن على إيش اللي يتهرب تأدرين مسوي نقرأ mashquulka goobtan oo ah xarunta caafimaadka deegaanka dumarku waxay ka helaan la talin joogto ah daaweynta iyo la socodka xaaladda hooyada uurka leh إن شاء الله رجينا مركز تنين أساس كلا ولا سعت حالة هذا عافمات بالكست هالكان وصوب وقت نووي ما نشرتو يمكن نووي ما نشر لستو نووي تري باكم إذا هاي السعودي ما إن شاء الله وكل بقعدنا يا وحن قلت لنا يا مركز تنين كده عشان نفقة ذا هو يدا أور كلا وحاجر عنوي نفقة وله إن عنتو وصو إلما هذا كعاون إنه يشوف ويتم في عن هكذا الميسان وكل شو في عن nafaqa darrada carruurta yaryari waa mid baahi weyn ay u qabeen dadka deegaanka haddase xarunta ayaa baahidaasi dabooshay hablo waxbartay ayaana halkani ka shaqeeya haweenka ku nool deegaanka sidee ayay ahayd xaaladooda ka hor inta aan la helin xarun caafimaad haddase maxay ka dhaheen farxiyo maxamed nuur ayaa ka hadlaysa amuurtani alxamdulillaah shalay waxaan codsanay iyadoo halkan aysan ahayn xarun caafimaad ay hooyooyin badan macnaheedu si caqabad xun ay ku haysatay alxamdulillaah hada waka MCH uu noo shaqeynaya waa ku faraxsanahay alxamdulillaah ilaahay baa mahadleen hada koowaad ilaahay baa iska leh hada labaadna walaalaheena nagu caawinay MCH ka noo dhisaaniin oo iminkana bahalkii shaqaalaha sharafta badan oo gacmaha furan oo si fiican noogu hagar baxayna noo keenay alxamdulillaah shukri xarunta daryeelka hooyada iyo dhallaanka waa shaqadii markii hore loo dhisay balse hadda waxay qabataa shaqo taas ka weyn oo looga faa'iideystaa waxaana halkan la keenaa marmarka qaar dadka dhaawacyadu soo haleeleen isla markaasina lagu dabiibaa dadka aan qaabilno waxa u badan hooyada iyo dhallaanka iyo emergency-ga qaybta oo dhaawacyada iyo dadka meelaha laga keeno xarunta waa la soo gaarsiiyaa gargaar baa loogu soo sameeyaa deegaanada lagu xeeran oo kale intaan ka gaarno waa la aadaa isbitaal caafimaadka oo u baxdaa kadibna hospitaalka lagu soo xiraa intii xaruntu meel fiican bay xaaladeedu hadda maraysaa alxamdulillaah rabbil caalamiin adeegyo badan baa lagu guuleystay waa u jeedaan maartay gabdhihi caafimaadka oo qaybaha sectionska wareysiyada laga soo qaaday waxa kale oo wareysiya laga soo qaaday dadkii deegaanka oo xarunta ka faa'iideystay oo runtii si mug iyo miisaan leh uga faa'iideystay haddana maartay hawsheedii aanu weli sii wadno oo aan rabno insha Allah tacaala inay maaragtay sida deegaanka caafimaadkiisu si guud inuu sidaan ka sii fiicnaado insha Allah tacaala kana sii hormaro haddii aynu intaasi ku dhaafno xarunta caafimaadka inta aan idin geyn iskoolka isoo raaca waxaynu aadaynaa halka laga dhagax dhigayo xarunta booliiska magaalada barnaamijkan waxaa goobjoog u ahaa taliyaha qaybta gobolka Mudug gudoomiyaha deegaanka xubno ka socda ururka Tabantaabo iyo bulshada deegaanka madaxdiga saldhigaan waan ku mahadsantihiin isku tashiga iyo waxqabsiga aad samaynaysaan saldhigaanka booliis ahaan gobol waxaan rajaynaynaa inaan ka qayb qaadano wixii talo iyo tusaale iyo tabarba ah iyo qaabaynba sida loo dhisayo iyo sida loo naqshadaynayo waana ku garab taagannahay marka laga hadlayo adeeg aasaasiya ay magaalo u baahan tahay booliisku waa waxa ugu horeeya la raba in ay hesho xagga gabaldhaca magaalada goob aan aad uga fogeyn ayaa loo gartay inay noqoto xarunta booliiska magaalada waxaana lagu dhisayaa isku tashi bulsho dadka deegaanka qurba joogtooda sidii lagu dhisay adeegyadii horeba dhulka tala aan ugu talagalnay saldhiga waa boqol hadda oo la dhagax dhigayo insha Allah deegaanka wuxuu rabaa si contribution ahaan inuu dhiso iyo cid kale qayb qaadata isku tashiga deegaanka ka hana qaaday mashaariic badan hore loogu soo fuliyay
loona soo qabtay haddana adduulaahid musi dardar leh ku socda oo aan rabno insha allahu tacaala taliyaha oo wakiilka ah guud ahaan gobolka amnigiisa iyo afka dawladdaba adduulaahidmo oo aan rabno insha allahu tacaala in contributionka deegaanka kaga aadan iyo maaragtay taliska qaybta in uu adduulaahidmo nagana geeyo insha allahu tacaala kana sugayno insha allah qaybta dawladda ayadoo adduulaahidmo aan rabno in deegaankan adduulaahidmo laga hirgeliyo sidoo kale kastamkii cashuuraha oo runtii deegaano badan oo gobolka ah laga sameeyo sarfiska dawladda iyo cashuurta lagu qaado. waxbarashadu waa furaha nolosha waa halkudhigga ee halkan idinkaga muuqda. xaruntan ayaa waxaa dhaqaale iyo muruqba ku bixiyey qurbo joog iyo weliba dadka deegaankani ee ka soo jeeda. taas ayaana keentay inay jiil badan halkan ay wax ku bartaan, balse sida aad aragtaan qolalka qaar fasalladu laba ayay isku saaran yihiin, taas oo sababtay in halkan ay cariiri ku tahay ardayda wax ku barata. baahida ayaana markaasi ka dhigaysa mid madhamaata ah oo waxay u baahan yihiin weli in la caawiyo. markana iskuulka deegaanka ay wax ku bartaan arday badani maanta ma aanan helin ama lama aanan kulmin ardaydii oo joogta, balse bedelkeeda waxaanu warbixin ka dhageysanaynaa maamula Faarax Axmed Maxamed si uu nooga warbixiyo halka ay wax u marayaan. iskuulku meel fiican buu marayaa si guud waxbarashada deegaanku waxa ayna waxbarasho 3 qaybood ah qaybta quraanka asaasiga barbarashada iyo halka laga soo gelayo iyo qayb taxfiida iyo iskuulka oo ilaa hadda shanaad maraya alxamdulillah deegaanku si guud amni ahaan iyo waraaqo kale waa ka jira alxamdulillah ilaahay raxmadiisii uu noo shubay dhulku maanta iyadoo cagaar ay tahay jawigu degan yahay ayaanu galabta waxaan ku sugnahay iskuulka dhexdiisa waxaa garbaha iga taagan qaybo ka mid ah macallimiinta qaybo ka mid ah guddiga waalidiinta oo ugu horeeyo gudoomiyaha guddiga waalidiinta waxbarashada Saleemaan maxaa cabdi si guud iskuulka iyo dugsiga iyo jawi waxbarashadu aad buu u wanaagsan yahay waxaan noo soo dhaway tayramkii koowaad ee sanada 2022 si guudna alxamdulillah waan wacanahay waxaan u mahad celinaynaa أنا ku hadlay afka macallimiinta iyo afka deegaanka gacan fale waxaan u mahad celinaynaa jaaliyadii halkan ka kor qaaday fiigii laga qaaday ilmaha oo hadda jaaliyada ayaa gacanta ku haysay iskuulka muddadii hadda 2 bilood la soo dhaafay iyo bishan hadda 3 koobtoonaad oo socota iskuulku wuxuu ku shaqaynayay si free ah jaaliyad ayaa gacanta ku haysay waxaan leenahay miisaanka xasanaadka Ilaahay ha ugu daro waa loo ogyahay waana looga abaarhayaa intaasna waa looga soo ducaynayaa qoysaskii danyarta ah oo ku sugnaa deegaanka oo fiigu dhibaatada ku ahaa run ahaantii maantay waxbarashadu aad bay kor ugu socotaa arday badan oo imaanaysa maadaama la galay xilli rooban alxamdulillah rabbil caalamiin hadda maalmahan waxaa ardaydu soo siyaadaysaa wala soo xareynaya deegaankan sida guud wuxuu ku xiran yahay baadiyaha oo dadkiisa ugu badan waxay ka imaanayaan baadiyaha ku goobay eriyadana hadda waa camiran tahay oo dadkii baadiyaha waa buuxaan ilmihi hadda waa imaanayaan waxbarashada kuwa badan baa hadda nooga imaanaya banaanka alxamdulillah rabbil caalamiin. awalow wax badan la qabtay haddana baahidu waa ma dhamaato oo markii aad weydiiso bulshada deegaanka waxay ku sheegayaan wax badan inay u baahan yihiin. waxaan doonaynaa in maaragtay nala sii taakuleeyo oo fiigii oo dhan oo ilmihii ama dugsi ha ahaato ama iskool ha ahaatee iyo shaqaalihii intaa oo nala ka dulqaaday haddana waxa weeye baahidayadu waa ma dhamaato oo dad wax iska dan yar ah meesha aan duruuf la gashay baan iska noqonay in loo ka sii roonaado baan rajaynaynaa. barnaamijkeena aanu ku eegaynay kaabayaasha arrimaha bulshada iyo nolosha guud ahaanba deegaanka gacna fale intaas ayaanu ku soo gabagabaynaynaa warbaahintu waa meeraysane anigu waxaan ahay Nasteex Cabdisanaan Barre tan iyo inta ku kulmi doono barnaamij kan la mid ah waxaan leenahay nabadgelyo.